بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. درسيان ودرسي السقالات كمذا كتابك أبي شجاع للقاضي أبي الحسين أحمد بن الحسن بن أحمد الأصفهاني رحمه الله. درسيان ما أنتم حكب الله بنيا ماشي وذاتك أوليه وهيئاتها 15 خصلة. رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. ولي waxaan ku guda jirnaa salaada gaar ahaan fasalka ka hadlaya arkaanta iyo sunnooyinka. wadaadku wuxuu yiri wahay'aatuha hay'aadka salaada. hay'aad markuu ku yiraahdo macnaheedu waxa waa sunnooyin. wuxuu kala qaaday sunnooyinkii buu laba u kala qaaday. darsigan darsiga ka horeeyay wuxuu ku yiri sunnooyinka salaada qabla dukhuli fiha shay'an laba way salaad inta la gelina sunnooyin baa ka horeeyay. salaada dhexdeedana sunnooyin baa ku jiro ku yiri labada sunno wadaadku ku sheegay. labada sunno macnaha hadaan ku fududeeyo iyo sunnooyinka waxay ku kala duwan yihiin. sunnooyinkan waa sunnooyin hadii laga tago aan laga rabin in loo noqdo, sidoo kalena aan laga rabin sujuudu sahwi. ma la fahmi 15 kan sunno hadaa ka tagtid sujuudu sahwi laga ma rabo. ibraahim haye sunnooyinkan 15 ka hadaa ka tagtid sujuudu sahwi laga ma rabo. sidaas ay markuu kala duwan yihiin. shaafiiciyada waxay kala qaadaan kuwa laga rabo sujuudu sahwiga gooni bay u saaraan. sunnooyinka aan laga rabin sujuudu sahwigana gooni bay u sheegaan. sunnooyinka laga rabo fi fiqh shaafici hadaa ka tagtid sunnooyinka laga rabo sujuudu sahwi laba kaliya way iska ogow. labadaana waa soo marnay. midka koobaad waxa weeye at-tahiyyat. at-tahiyyatka hadaa ka tagto at-tahiyyatka hore hadaa ka tagto marka iyada sujuudu sahwi laga rabaa. sidoo kale hadii qunuudka salaada fajr ka tagto fi madhab shaafici waxa laga rabaa sujuudu sahwi. labada marka wadaadku wuxuu ku sheegay sunan. wixii inta ka soo haran wuxuu ku sheegi doonaa hay'aad buu ku sheegi doonaa. hay'aadka marka macnaheedu waxa weeye sunan. kutubta qaarna waxa laga yaabaa inaad ku aragtid sunan, hay'aad iyo abcaad saddexdaas. okay abcaad wali hadana waxa looga jeedaa sunnooyinka laga wadaa. marmarka qaar waxa dhici karta abcaad inay ku cabiraan sunnooyinka hadii aad ka tagta laga rabo sujuudu sahwi. ma la fahmi aan gala marka wadaadku wuxuu yiri wahay'aatuha salaada hay'aadkeeda ay sunankeeda 15 khasla 15 qaybood way 15 way. raf'u al-yadayni gacmaha oo kor loo qaado cinda takbiirati al-ihraam. xirashada takbiirteeda agteeda macnaha gacmaha oo kor loo qaado, labada gacmood oo kor loo qaado waa sunno way. nabiga sallallahu alayhi wa sallamna ibn umar wuxuu ka warinaya wuxuu yiri raaytu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam iftataha at-takbira fi as-salah farafa'a yadayhi hina yukabbir حتى يجعلهما حذو منكبيه. معناه marka gacmaha kor loo qaado marka hore waxa laga maarmaanay inaad ogaato gacmahaada oo sidaas ah waxay u jeedaan dhinaca qiblada. adigana isku soo jeedin maysid dhinacna ka dhigi maysid. gacmahaada qiblada u jeedinaysa marka koobaad. marka labaadna dadka qaar baa waxay sameeyeen dhegtay taabanayaan sidaas ku leeyahay Allahu akbar buu ku leeyahay. ma dhegta inaad taabato laga ma rabo waxa laga rabaa farahaaga foodooda inay ku aadaan dhegtaada meesha carjawda ah inay sida ugu aadaan oo kaliya. sidoo kale waxa kale banaan inay ku aadaan garabka sida garabku ugu aadan. marka hore gacmahaaga sida markeen hadaa laabto oo kaliya waxay gacantii markiiba ku aadaysaa garba.
haddaad wax yar kor u qaadana waxay ku aadan tahay dhegtii arjawda xadwa mankibayhi marka lagu dhahay sidaas oo kala waay ma lay fahmi labada qaab hadaan ku celiyo waa sida garbaha ah iyo sidaan oo ah ilaa dhagaha labada in la sameeyo marka رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام gacmaha oo kor loo qaado marka salaada la xiranayo Allahu akbar Allah salaada marka xiranayso inaad Allahu akbar gacmaha sida tiraada laga raba waa garan وعند الركوع iyo marka la rukuucayo rukuucda marka loo socdana gacmaha sidoo kale kor baa loo qaadaya والرفع منه marka laga soo kaco rukuucda oo la istaagana kor baa loo qaadaya meeqa xaaladood way saddex xaaladood way xaalad afraad wadaadku ka tagay xaaladda afraad waxa weeye at-tahiyaadka dhexe at-tahiyaadka hore marka aad ka soo kacdo Allahu akbar soo dhahdo istaagto oo ragcadda saddexaad aad u istaagto iyadana gacmaha kor baad u qaadaysaa afarta xaaladood baa sunna ah afarta xaaladood sunna way kadib wuxuu ku yiri taas waa sunnadii koobaad ee 15 ka mid ahayd hay'ada labaad waxa weeye wad'u yamiini ala shimal wa wad'u al-yamin midigta in la dul saaro ala shimal bidixda sida loo saaro macnaha sida inay isu dul saaran yihiin waa qaab waa la sameyn karaa sidoo kale sida in loo qabtana waa la sameyn karaa labada qaab midka koobaad hadaan ku celiyo farahaaga sida gacmahaaga sida ah ba bidixdii sida leedahay kadibna waa dul saaraysa sidaas isku dul saaran yihiin oo kaliya marka kalena waxa weeye waa qabanaysa labadaba nabiga waa ka sugan tahay sallallahu alayhi wasallam bidixdii meesha ba sida u qabanaysa okay kadibna waxaad saaraysaa meel u dhaxaysa xudunta iyo xabadka naasaha meel u dhaxaysa labadaas ba saaraysa halkaas ba sida u saaraysa wad'u al-yamin ala al-shimal sida way nabigu sidaas uu sameyn jiray sallallahu alayhi wasallam sidaas aan raba hadaad aragto marka qof salaad ku jira oo kala bedelay badana dadka hadda soo islaamay iyo dadka aan weligood salaad tukanin iyo ciyaalka yararka waxay sameeyaan midigtay hormariyaan kadib bidixda dul saaraan waa ka qabanaysa dadka qaar waxay sameeyaan iyagana gacan sida markay tahay halkaas saaraya halkaas suxulkaabu gacan saaraya qalad waay waxa yiri halkaas iyo halkaas baa saa isku qabsanay kadib gacantaada fidi sida way imaam yaa u badantiin Soomaa alla iska ilaaliyo marka sidaas leedahay ama waa qabanaysaa بعض أهل العلم waxay dhahan labadaba sunnada nabiga ka sugan sallallahu alayhi wasallam si aanu jamciyo waxaan sameeynaa saddex faroodna halkan aan saaraya suulkana gadaashaasan kan kaga soo qabanaya faryartana sidaas aan leeyahay oo saas ugu qabana labadii sunnaba waa kulmiyay saa waxay waqtaa in sax ahayn nabiga sallallahu alayhi wasallam marmarka qaarna sidaas sameyn jiray marmarka qaarna sidaas sameyn jiray ina marka aad adigu labadaba sameeyso marna sida aad u tukato waxa weey sunna nabi baad nooleys mar kalena sida marka aad u tukato sunnadii nabiga ee kala nooleys labadaba nooleynta oo sunnada nabiga aad nooleynay sallallahu alayhi wasallam ajir gooniya ku helaysa laakiin reer magaaleysigan la leeyahay labadooda waa isku soo qabanaya nabigu soo ma sameyn karin sallallahu alayhi wasallam sida saddexda farin oo sida halka inta u saaro sida yiraahdo soo ma sameyn karin ha mar hadduu sameyn karay marka uu ka tagay maxay tahay aniga leysinimadan iyo sidaas u sameeyay leeyahay qalad way sax maaha laakiin marka la qalad way ma waxaan ka wadnaa salaadu waa ku buraysaa maya kuma burayso sida xataa nimanka maalikiyada ay sameeyaan maaragtay maalikiyada nimanka qaara noo yimaado nala soo tukado Allahu akbar buu ku leeyahay gacmaha waa fidsan yahay waxba qabsan maayo
meelna saari maayo sidaa xataa hadduu qofka sameeyo salaadiisa waa saxiix waay way ansaxaysaa macnaha salaadu ka buri mayso laakiin waxaa ka maqan sunno waay sunnooyinkan 15 ka tegidooda salaadu kuma burto ma la fahmi Ibrahim haye when you're holding the wrist, do you put it on the hand or put it on the wrist? No, waa kuu sheegay handiga maaha halkaas qabane the first one call that hand cast put on like that saasa u saaraysa the wrist on yes sidaa way haa hey waa haysa ariga ku xiga waa tawajjuh waxa weeye tawajjuh way tawajjuh waa maxay waa ducaa ul istiftaax tawajjuh hadaa maqashid halka laga keenay tawajjuh ducaa ul istiftaax baa kitaabada kala ku arkaysa Soomaa Shaafiiciga waxay ku leedahay tawajjuh halka laga keenay hay xarid اللهم يقبل أبتا صح وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين دعوين كإيجا دعوين بدن بنبي الجوري صلى الله عليه وسلم إذن شافعي waxay badana u badan yihiin inay dhahaan wajhatu wajhi okay waxa jirta subhanaka allahumma wa bihamdik wa tabarak ismuk wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk soma in lagu bilaabo kullu ducada ku bilaabataba adciyadi nabiga uu sameyn jiray sallallahu alayhi wasallam ducaa ul istiftaax loo yaqaano hadaad ku bilaabato dib malahan salaadaadu waa saxiixa way سنة أفراد وحاوي الاستعاذة استعاذة إلا ليماذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بعلا إيمانيا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كرلو به ما يهوس بالله دهيا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلهي سبحانه وتعالى وكو أمري قرآن كالحديثة فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم الاستعاذة كاوي مرك ركعت والبنة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذكرى ركعت كوبات كلمة ركعت والب مركات قرآن كبالله بيسو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بالله سنة شنات وحاول والجهر إنكر له أخريه في موضعه بوسك كرلو آخرين لها قرآن إن كرلو آخرية ماش كرلو آخريني يوال إسرار إن هوس لو آخريه هرت والجهر في موضعه ما لها كرلو آخريه وها ماشي وصلاة الصباح إيه لبدا ركعة صلاة الصباح لبدا ركعة هراء مغرب إيه صلاة العشاء صلاة الجمعة عيدينك خصوفك استسقاك تراويح ده iyo salaadaha wixii la mid ah yes xaarif only jamaa or is only also praying alone marka kaliya tukanaysid xataa kor oo akhrin kartaa salaad walba oo jamaa ahaan loo sunneeyay in kor loo akhriyo kaliya marka tukanaysidna kor oo akhrin kartaa dib ma laha واجرن والإصرار في موضعه إن السر يستأجنا أن صلاتها هوصل آخرين سدا صلاة الليل كوكله سدا نفل مطلق كوكله سنوين كعادية الرواتب تائي وتر كأيه صلاة الليل كأيه صلاة أصلا هوس بالله آخرياوي وسنة لحاد سنة التضباط وذات كحير والتأمين آمين إلا يراه ولا الضالين مرك الآخري آمين إلا يراه ذوي لما كان هندي ذا سكايل هذا مركال الجوكت يا والجو جينيا قص بالجوسينيا ولا الضالين مرك إلا يراه يا كل جابوا حركة سحب سد حفظي سوما نحتاجن سوما له حب سد هذان يا أدين كانوا حاطين هذا أوف سايد سوما هذا أوف سايد نحتاجن أنا وحنا أنا حب سد هذا حب سد كجرا بازار كيسا كل جا نحتاجن وسيرك كويه فريم بيقولوا كويه ريه بار كيسا يا ولا الضالين مرك الله لكن سيد السنة وحاوي آمين إن كر الله هو آمين إن الله
korna loo dhaho sidaasaa sunnada ah. Abu Hurayra radiyallahu anhu ardaa wuxuu nabiga wuxuu wariyay wuxuu yiri ka rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam idha tala ghayr al-maghdubi alayhim wala ad-dallin qala amin hatta yasma'a man yalihi min as-saff al-awwal. Aamintiisa waxa maqli jiray dadka nabiga xiga sallallahu alayhi wasallam ee ku tukanaya safka hore. baasha laakiin la wada aamusan yahay salaada hindida waa salaad inkaar qabto waa la wada aamusan yahay shib wala daalin masaajidka dhanaa maqlays masaajid dhan buuxo oo dhowr boqol qof ku tukanaysa wala daalin bal shib wala wada aamusan marka in la wada dhawaaqal rabaa kor loo akhriyo yes zakariya madhabkooda raacsan yihiin wa qiraa'atu suurati ba'da al-faatiha وقراءة السورة سورة آخرين تذوي بعد الفاتحة صلاة فاتحة كتب سورة إلى آخرها فاتحة وصامرنا والركن من أركان الصلاة لكن إن سورة لا آخرها أما سورة كاملة هالنقط أما هالآيات هالنقط أما آيات هالنقطان والسنوي كم إذا سنوين كالنبي صلى الله عليه وسلم إذن وسنة إن سورة آخرها بعد الفاتحة سنة سقالات وحاوي وذاتك وحير والتكبيرات الله أكبر إن لا يراد عند الرفع والخفض مركا كرلا صون قنية يا مركا هوس لآدي مرول انتقال سمينيس من ركن إلى ركن وحال قاربا الله أكبر سداوي وقول سنة الطبنات وي مركا لقرها بمدان لكن سمع الله لمن حمده كما جرت سمع محايا المرول بو كورن قنيس وحال ويري الله أكبر له لكن كما جرت سمع الله سداسو كوكو كان مركا مدى الطبنات وحكير وقول سمع الله لمن حمده إلا يرهدو سمع الله لمن حمده الله مغلو عدي كما هذه الساعة يا ربنا لك الحمد إن لا يرهد الله وضع ما هذا اسكاله ربنا لك الحمد إيه ربنا ولك الحمد إيه اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد كل قد وسنوي النبي كسكن صلى الله عليه وسلم حديث كي أبو هريرة رضي الله عنه بخاري وصوصاري مسلم لبضا بيصوصارين وأبو هريرة الصحابة قال كير إني لا أشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانا إنك إذا يكون صلاة معناها النبي صلى الله عليه وسلم مركز وحسمين كلما خفض ورفع سداس لهي وحسمين الله أكبر بورني سمع الله لمن حمده إن النبي لهي كرنا لهي مركا أيضا وهي سجنتهاي ربنا لك الحمد يا ربنا ولك الحمد يا اللهم انت ان شيغي iyagana waa ay sugayiin sunnada koobiye tobnaad waxa weey wa tasbiixu subhanallahi in la yimaado way fi rukuucda dhexdeeda iyo sujuuda dhexdeeda la yimaado rukuucda dhexdeeda maxaa la oranayaa subhana rabbiyal azim ba saddex mar la oranayaa sujuuda dhexdeedana سبحان ربي الأعلى بسدح مر لورانيا هذا اسكو قلد كور مرمر بي دعدا تي ركوع ده لوغو تلغلay با waxa ku akhrisay sujuudi تي سجود لوغو تلغلينا ركوعدا ku akhris meeshii laga rabay subhana rabbiyal azim ba waxa tiri subhana rabbiyal a'la salaadaadi wali saxiix way waxa sujuud saawina laga marrabo wax dhiba ma laha waa ka gudbaysaa ووضع اليدين على الفخذين ووضع اليدين على الفخذين لماذا قعمود إن لصاروا فخذين بوذة إن لصاروا في الجلوس فدقة دحديث فدقة سوء فدقة أو نمبا أو مركا لغا سو كعو سجود مركا لغا سو نقضو fadhi walbo aad fariisanayso sidaas u fariisanaysa
okay gacmaha waxa saaraysa bawdada waxa saaraysa labada gacmood sida u saaraysa ayagoo fidsan yabsutu al-yusra tanbidix buu fidinaya hadii ay taxiyaad tahay way laakiin hadii ay taxiyaad ay labadaba waa fidinaysa wa yaqbidu al-yumna tan midigna waa uu qabanaya midigta waa uu qabanaya haye markuu qabto muxuu sameeynaya illa al-musabbiha en farta mooye murugsatada la yiraahdo farta maxaa la yiraahdaa murugsato fartaas mooye inta kale waa uu qabanaya marka tii bidixdeed sidaas aad u fidis waa dul saartay midda kalena sidaas u qabanaysa marka laga reebo fartaas murugsatada illa al-musabbiha fa innahu yushiru biha wa ku ishaaraya tilmaamaya mutashahidan xaal wa akhrinaya tahiyaadka okay xaal wa akhrinayo tahiyaadka soo akhrinay sidaas u taagaya goorma la bilaabaya fartaan la taagayo waabana dhibtay goorma la bilaabaya marka aad tahiyaadka bilaabaysid at-tahiyatu marka tiraahdo waa taagaysa farta waxba sugi maysid Allahu akbar sujuudi ma ka soo kacday ma soo fariisataha tahiyaad ma bilaabi rabtaa fartaadaba sidaas aad u saaraysa hora ka bilaabaysa at-tahiyatu lillahi goorma fartaan joojinaysa oo fariis sidaa ka dhigaysa waxba ka dhigi maysid sida adigoo ah lagugu aadaamaya ma taqaana macnaha adoo sidaas assalaamu calaykum leeda sida adigoo ah maxay dhib oo kugu haysaa adiga fartaan bilowgaba isagala bilow kuna dhamayso waxba maxaa la yiraahdaa ayadoo shadu an la ilaha illa allah marka la dhaayo dadka qaar ay farta furaan looma baahna fartaan marka tahiyaatu leedahay waa bilaabaysa oo waa la bilaabaysa marka waxa ii soo haray horta ibn umar radiyallahu anhu wuxuu yiri kaana rasuulullah sallallahu alayhi wasallam idha jalasa fi salah wada'a kaffahu al-yumna ala fakhidhihi al-yumna wa qabada asabi'ahu kullaha sidaas uu qaban jiray fariis التي وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام فرتيسة حكتة سول جنبر بسمالة هذانا سول كأنا وفرت حكتة بسدا أفيدين جري ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى ككلنا سدا ساري جري بدحدة بوددي بسدا أدل ساري جري من اللابي جرين فرت قعنت بدح وعيسو هاري فرت ملا دغدغا جنيا sidaas miya loo dhaqdhaqaajinaya waxa dhacday ogaada farta la dhaqdhaqaajinayo dad ba meel adag ka taagan ninba meel bari maxaa la yiraahdaa 22 sano ka hor salaad maghrib inagoo tukanayna baa nin soo bartay adigu xadiista wax ka dhigtay baa arintaas sameeyay wuxuu sameeyay fartu dhaqdhaqaajinay salaadii markaan tukanayn nin agtiisa ku tukanay marka waa dhibsada salaadii markii laga baxo yeeray war nooga bax bidciyahu masaajidka nooga bax kaasoo yiri maxaa dhacay maxaan sameeyo qalada wuxuu yiri farta dhaqdhaqaajinaysay salaadii markii lagu jiray nimankaana waxay soo dhigteen kutub maxaa la yiraahdaa oo fiqigana sida u tagi doono farta la iska walaaqayo dadka qaar asaa u wareejiyay waxa la iska walaaqayo ayagu waxay u yaqaanaan amal kathiirna salaad waa ku burtaa oo waa ku jabtaa ninka wuxuu aaminsan yahay marka dhinaciisa ku tukanaya nin iska ciyaarayo inuu yahay bal ilmo yar oo 3 jira masaajidka geeyo tuka dhamaanta dhan sidaas u warwareegayo dadku fiirinaya saas ku jiraya Soomaa ninka wuxuu haystaa ilmo yar oo tukanaya wuxuu yiri war masaajidka naga soo gelin balaayo ku hesha bidciyo ka bax masaajidka ninka marka nin degan waxa wuxuu yiri niyahow ma waxa haysataa daliil oo aad arintan aad ku diidayso mise iska qarracleynaysaa iyo dood ninki marka indha cadays iyo Soomaali cad buu meesha la soo istaagay
wuxuu yiri marka inta haday soo dhaaftan inay nin baan nahay masaajidkana habarta ma laha mar dambe hada ila hadashu yiri wallahi waxba isku arkaysa habarta aroosan ku tusaya ya ma fahant adoo jahwarsan ba masaajidka ka baxaysa uu yiri nin aad xoog weyn oo nin dheerna uu ahaa masaajidka dadka laga tilmaamo kamidaba oo markuu sida u soo galala laga heebaysanayo ninka markii inta lagu yiri miirkiisa u soo noqday markii la yiri intaas miirkiisa u soo noqday aayar iska dhaqaaqay si tartiib iska baxay ninkiisu alwaalayba ma ahaba masalada marka la leeyahay farta la dhaqdhaqaajinayo hadii shaafiiciye la yiraahdo horta shaafiicida aad ugu adag yihiin بعض علماء الشافعية وحيدان صلاة وكبرتها دا فرطة ولا أخذوا بعض أهل الشافعيين وحيدان كبرتوا سلاسة صحيحة صلاة كجا بميس وحال وريا حديث بارنتا الوريا وائل بن حجر رضي الله عنه وارضاه ونبي كوريني فرأيته يحركها يدعو بها بوليه فرأيته نبي كان أركي يحركها يدعو بها isagoo dhaqaajinaya oo ilaahay bariyo duceysanay xadiidka isaga hadda ka hadli maayo sanadkiisa iyo xadiid kale ka soo horjeedo oo laga yiri Bara ibn Azib inuu ha u maleynaya kaana la yuharrikuha oo Bara ibn Azib inuu ha u maleynaya ma hubo waxa way mar kale ka dhiganaya xadiidta la ka hadda waxaan ku talinayaa farta qofka inuu sa dhaqaajinin خلافا من محل الخروج من الخلاف فرتها دقاجين سدا يدا او تاغن التحيات كذا كو ذكر دميسو ما دام لا اسكو هيستو راحمرك waxay dhaana raxmar hadaan raxmarku waxay dhaan banaankiis marow maradiis bood ma qabsado ma taqaanaan hadii aad ka fogaato meesha ooda iyo darbiga markii hore darbiyada la dhisay guriyaha ood iyo dhis iyo waxba lagu dhisi jiray meednaan soo gaarin adinka dhagaxyadaana aragteen marka hadaa u dhawaato waxa ku qabsanaya qodax iyo waxba ka soo gaaray geedka iyo ku qabsanaya marka waxa dhaado ka fogaadaba qofka ma soo gaarayaba male idan adiga hadii aad sida inta u taagto salaad ku tukato wax ku dhahaya mala salaadaad way jabtay sababkan sida u dhahayana waxa jira waxbaan tuunsanahay aan rabaa inaan ka hadlo hadda xadiidka waqti uma helin mar hore ugu dambeysay laakiin marka hore ugu dambeysay qanaaco waxaan gaaray inaan la dhaqaajin karin qanaaco baan gaaray hadda laakiin ma faahfaahin karo marka la u dhiganaya haduu ilaahay yiraahdo biidnillah sababka aan ku gaarayna waxay ahayd sabab xadiidka ku saabsan xadiidka iska laalaadiyay xadiidka Wa'il ibn Hujr imma marka iyada waxaan ku dhiganahay xadiidka رواية أهان أما الدراية أهان لبضا مد رواية أو دراية لبضا مركا حديث وحان إذا كلت لنا يا وكنا صحينا يا إن لا يسكا إلى عليو لغاجنتا يلا لغاجن سدحي طبعا سنة سدحي طبعا والافتراش في جميع الجلسات افتراش هو معي افتراش هو حاوي إن لقت لقبلدو أو لقت هذا أتكون فريسة بدح في جميع الجلسات فديده oo dhan waa sunno in lugta la goglado lagu fariisto iftiraashka aan ku tuso marka waxay gadaala u baxaya waka lugtaydii baan sida u laabaya sida marka u laabo baan saa ugu fariisanaya marka sida marka ugu fariisto macnaha lugtii oo laaban baan ku fariistay اوكي سدا وهي افتراشك وانا سنده صدحي طبنات جميع الجلسات marka uu kuleeyahay macnaha waa maxay mar walba oo aad fariisanayso ama taxiyaad ha noqdo ama yuusan noqon taxiyaad ha noqdo ama yuusan noqonin okay waxa kale jira ayadana sunno kale qaab kale sunna oo loo fariisan karo fadhi walba marka laga reebo at-tahiyat fadhigaas waa maxay cirbaha inaad ku istaagto ayadana ay tus sidaas aad leedahay cirbaha sida ugu istaagaysa
sunnada 13aad waxaa weeye al-iftiraash wadaadku wuxuu yiri wal iftiraashu fi jamiic al-jalasaat iftiraash in la yimaado jalasaadka oo dhan iftiraash maxaa laga wadaa aan ku tuso marka hore aan tilmaamo lugtaada bidix inaad sidaa u gogasho dhinac ka dhigto kadibna aad sintaada iyada dul saarto dhinacaana u jeesanaya waa ku tusaya marka waka lugtaydii oo sidaas baan sidaa u goglaya markaasaan ku fariisanayaa tan kalena waan taagayaa lugtaydii baan ku fadhiyaa iftiraashku waa kaawe waxaa kaloo jira isla fadhigan sunno waxaa iyadana sunno fadhi la yiraahdo al-iqaa ibn Abbas radiyallahu anhu wardaa baa nabiga ka wariyay wuxuuna oran jiray waa sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam hana la yaabin inuu dhihi jiray ayadana waa fadhi walba marka laga reebo ataxiyaadka waana kan sidaan weey inaad cirbahaaga sidaad arkayso inaad ku fariisato waa fadhi walba marka laga soo kaco sujuuda labada fadhi marka sidaa weey laakiin ataxiyaadka aan ka hadlayno oo aan leenahay al-iftiraash waa ataxiyaadka hore ataxiyaadka labaad wadaadka isaga keenay ataxiyaadka labaad waa kan wuxuu yiri sunnada 14aad wadaadku wuxuu yiri watawarruku in sinta dhulka la dhigto waa fil jalsati al-akhira fadhiga u dambeeyay sin dhul dhigsi in sinta dhulka la dhigto oo lugti bidixda ahayd baad fidinaysaa hoos baa gelinaysaa kadibna sintaada ku fariisanaysaa lugta midigna waa ay taagan tahay sidoo kale ciribta waa ay taagan tahay waka aan ku tusa iyadana waka lugtaadii oo sidaa baad sinta ku fariisanaysaa lugta midigna waa ay ku taagan tahay fadhigaas waxaa la yiraahdaa at-tawarruk fadhiga marka hadda aan sameeyay waa tawarruk fadhigaas waxaa loo fariisanayaa ataxiyaadka dambe fadhiga horena waxaa loo fariisanayaa fadhi walba oo uu ku jiro ataxiyaadka hore haddii marka aadan awoodi karin iftiraashka ama tawarruga labadaba ama waad xanuunsanta lugta ku xanuunaysa meel baa ku xanuunaysa ama fadhiga space ma jiro waa ciriiri meesha si allaale iyo sidaad awoodi karto baad u fariisanaysaa ma la garta midaana si allaale sidaad awoodi karto baad u fariisanaysaa inta way marka sunnada u dambeysay sunnada 15aad waxa way wa tasliimatu thaniya assalaamu alaykum tadambe midda hore hadda tiraahdo assalaamu alaykum salaadu waaba ka baxday waa iska istaagi kartaa way macnaha tadambe waa sunno haddii adigoo imaamka ka waranaad assalaamu alaykum inta tiraahdo iska istaagto Soomaalidu waa kula yaabayaan Soomaa waa inta aan diinta aqoonin baan ka hadlaa diinta garaneen waa sunno way salaam naqsiga dambe waa garan فصل والمرأة تخالف الرجل في 5 أشياء عفوا في 5 أشياء فصل كان waxaa looga hadlayaa xaariday 5 أشياء 4 أشياء بعدين ku qormiya ma في 5 أشياء والمرأة تخالف الرجل في 5 أشياء هوينيدا waxay ku khilaafaysaa ragga 5 shay bay ku khilaafaysaa salaad markay tukanayso haye dagaal baa dhacay wal iskhilaaf wala kala tagay way haye farrajulu ninka yujafi وفوقينيا مرفقيه جقلديسا iyo suxuladiisa wuxuu ka fogeynaya can janbayhi dhinacyada markuu sujuuda ku jiro sujuuda markuu ku jiro sidaas macnaa u sujuudaya iskuma qabanayo sida isuguma qabanayo wuxuu rabaa markay wadaadku wuxuu ku leeyahay ama gabadha uu ku soo wadaa gabadha way isku qaban doontaa sidaas uu ku soo wadaa waa garan inay rag horta marka hore aan meel saarno rag inay sida dhahayaan kala qaadayaan maxaa daliil u ah inay sida
uga fogeynayaan dhinacyada maxaa la yiraahdaa suxullada waxa daliil waa xadiidkii Abdullah ibn Malik ibn Buhayna radiyallahu anhu ardaa أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه معناها ساس وكل فوقين جري إلا كليه سعدان تودا أي كم غضان إلا كليه سلقا أركو بمعنى كفوقين جري واقرني أبي حميد رضي الله عنه ونوحولها نحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه مركا سجود السنة قعمها وحال ربائن يكو آذان قربها يكو آذيان كدبنا وكفوقين إساء بشرط وحاوية إن سبيس هايسر هذا ماشي عريري تاي جماعات كنتو كنيس سحل كاغين الددك كجلسو أفكا وددك ديش الله مرة جاء ددك إنا ديش الله مرة ننا وعيقيري أن صاحبنا يوم مساجد مالها كويستان من أدقوا هذا قرمها أنا وأن كان يبير مساجد كي إمامك النقضي مركا جماعة اسكو حرام ويردان يراه مساجد كان من هندية أو بدن وكنت كذا هندينا وارك مركا لتكنا اللغة كقول الجن مايان ولا كلام فوق هذا يوسف دوان ألعبت كورونا هو كله كورونا مع الستان يا ساسو كله هندية وكلام فوق هذا كورونا يسيو جاي مية من غانا بلاي ذي مركا نكا وحو سميي وحو ساقبت نين بلوكتي ساقبت نين دنيعيس كنت كناي بلوكت انت ساقبت سو جيدي markaas lugta ku dhajiyay lugta sida lugta ugu qabtay marka ninka waa yaaba salaadu iska tukada waa iska baxay mudiirka masaajidka u tagay wuxuu yiri nimanka cusub oo noo keentay inkaarta qaba maxay ahaayeen anoo tukanayo sida igu sameeyay ninki marka waxa la yiri nin dhalinyaro waa wareed maxaa sida u sameeyay wuxuu yiri nin wadaad oo sameynayaan arka qofka sida u soo jiiday lugta qabanaya dhab haduu faka magacta xoog u qabo war ninkaan tukanaya maxaa ka galay bal ku qabatay dadka ninkaan tukanaya dhinaca ku tukanaya adu waxba kaama gelin isku day inaad u dhawaato hadaysa dhici karin la waxaan sameyn karin qasabku kuma idan waxa ku keenay arinta iyada marka aad kala fogeynaysaan dadka dhinaca ku tukanaya iska ilaali waa garanay arrinka xiga waxa uu yuqillu badnahu arrinka labaad oo dumarku ku khilaafay waa maxay ragay ku khilaafayaan dumarka ويقل بطنه علوشيسو كقاديا عن فخذيه بودديس مركو سجوده يدن في الركوع والسجود لبدل ركوع دي السجود مركا سجوديس علوش هذا بودده uma dhaweynaysa waa ka fogeynaysa macna iskuma adiga dhan iskuma soo aruuraysid way waa garan ayadana xadiida ku sugan min xadiid Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi radiyallahu anhu warda anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ما حديث سهل ماهن حديث أبي حميد ويا مركله أبي حميد وتلمامه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بوحير وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه معناه كالقاذي جري بوكليه أرنك السدح هذا دمر كي يرجع يسكو خلافيان ويجهر في موضع الجهر ولا جهريان رجو قراءة ولا جهرية مالي لا جهرية أما دمر كسومها لا جهري مايان بكله وذاك كرو آخر مايان أرنك أفراد وإذا نابه هدو كي ماذو شيء في الصلاة صلاة يدو اللي جرى هدو وحي مادان سهوية يسوق على صلاة نحدن سبح سبحان الله وليه سبحان الله واقرن وعورة الرجل ننك عورتيسا ما بين سرته وركبته انت قلنا حيسوي محل يرادا حندرتا اما حدنتا اما بوفكا صدح هذا الصومالي الحين ماشاس قدنو يرتا ماشا يروحا لها حندرنا والها حدرنا والها محل يرادا بوفنا والها اذن كان محل لها أذين كنا محاد هذا ها بلياس باسو شكتان وي
iyo ilaa iyo lawyaha ama jilbaha inta u dhaxaysa intaasay rag u qarinayaan macnaha inta hadii qaawan tahay dib mala way hadii aad xiran tahay bahal yaro ali falaax oo dheer oo ku eg maxaa la yiraahdaa jilbaha kambarooniga ku ciyaartaan jilbaha qarinaaya ayadana salaad waa tukan kartaa marba hadii jilbaha qarsan yihiin wax inta ka soo harwadaad ku xug leeyahay sunno way adigoo intaadaas feerahaagi muuqdaan oo feeraqan yahay adigoo qabuubax oo halka taagan ba tukanaysaa wadaad ku leeyahay sida ku tuko waa garan waa tukan kartaa laakiin sida haboon waxa weeye qofku inuu ilaa iyo garbihiisa wax saaro ana feerihiisa muuqda inuu san tukanin xadiidkii cumdatul ahkaamka aad ku aragteen iyo qeyrkiisba ana abu ku jiray maxamed haye fadal qaar baa jilbaha ma naqaris salaad markii lagu jiro waxa dhahaaya ma jiro laakiin kharij as-salaa waa la isku khilaafay salaada dhexdeeda khilaaf maaha jilbaha in la qarinayo laakiin salaada marka lagu jirin ma la qarinaa mise la qarin ma waa la qarinaa insha Allah laakiin faafahinteeda hadda gali maayo waa garan khilaafkaas hadda u biximeen because salaada ma khusayso ma salaadu kuma saabsana waa garan Ibrahim ay video there was a person cough video he cough to kanay lakin like surwalkiisi hoos u dhigay because it was like shorts it was like those weird shorts like he had like way dhacdaa waxa dhacda dadka qaar markay surwaalka xiranaya xundunta hoosteeda ka xirtaan funaanad yar wata funaanadu wata marka koray aadaysa markay kor aad dabadiisa muuqata marka waa qaawan yahay iska dhaaf inta la gaarin dabade qaybtaan maaragtay xudunta waa halkaas Soomaa meesha xudunta ku aadan ya oo gadaal dhabarka haday muuqato salaad ma leh laakiin ninkan salaad ma qaawanayn he just he wasn't reaching his knees haye so then he put it down a little bit and a little bit of his taama garanay say ku dhici kartaa dus qaawanayn a little bit of his underwear was showing. Man, he's got like shorts. He's got two shorts under. For example, he's got niggas and he's got shorts, and he puts the shorts down until it covers his knees. That's Is that allowed? ha hadii qofka laba shay uu wato oo mid hoos u dhiga ka kala soo qariya yes لكن عيب it looks like waa qalad weeyaan qofka inuu sidaas oo dhan buu aadaba hadii ilaahay subhanahu wa ta'ala ba hor taagan tahay ilaahaygi ku abuurtay subhanahu wa ta'ala horta marka hore inaad is asturto oo is qurxiso oo dhar fiican xirato Soomaa hadii interview aad leedahay ka war dharka ka ugu qurxan inta soo xirata dhala barafuuna isku jabinaysa Soomaa ya oo sida isugu daadinaysa nire baadiya waxa la yiri wuxuu aaday markii sawirada soo baxayeen photo buade marka hore photoyin baa la tagi jiray adinka meedna soo gaarina sawirada la isaga qaado hadeera teleefanadani wixii adigoo halka maray wax yar oo dhag iska qaadaysaa awal inkaar baa lagu qabay photoyinka sawir baa photo tagaysa sawir iska qaadaysa sawirkaas waxa sugaysa bil in la socdo 1 month in lagu soo cadeeyo baa sugaysa marka ninka markuu sawirkii aaday wuxuu aad isku buufiyaa barafuun aad u caraf badan sawirkii galay waa tagay odaga markii sawirkii loo keenay wixii ugu horeeyay sameeyay sawirkii uu carfiyay barafuunka inuu ka soo carfayo maleeya ya marka barafuunki mala ninkii haduuba qabay waa ku dhagay wuxuu yiri aniga day sawirkan aan markaan galay barafuun ay soo carfiyay aw barafuunkaygi marka ala ayati xaal awrada ilaahi subhanahu wa ta'ala walillahi almathalu al'ala marka Allah hor taagantahay isastur isqari dhar qurxan xiro dhar fiican xiro marka wuxuu yiri wadaadka halkee maray awrada marka maraynay satrul awra waa anagi nir ragga iyo dumarku way kala duwanaan doonaan halkaas aan ku tilmaamayna waa anagi nir waa kana inta laga rabo ragga inay qariyaan waa intaas ninka waxa laga rabaa xudunta ila iyo jilbaha inta u dhaxaysa inuu qariyo dumarkana waa ku iimaanaysa waa tanawuur wal mar'atu haweenayda
تضم بعضها إلى بعض يا تضم بعضها إلى بعض بركات ببركة كلا أدو يساوي بركات ببركة كلا أدو ميساوي معناها سلاس إسكو قبانيسا جير كده وحانا اللو دليشة حديث وريو البيهقي رضي الله عنه وأرضاه إيو أبو داود غير كيس أبو داود با في المراسيل كسو صار حديث كايساقا لكن بعض أهل العلماء وحيدها هو ضعيف حديث مرسلوي حديث كوحاوي النبي صلى الله عليه وسلم بوحوت جي لباه وينية وحصوم مريبا وجيدا مر على امرأتين تصليان لباه وينو تكني النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا حين إذا سجدتما فضم بعض اللحم إلى اللحم معناها سيدا يسكو الضمة مركا تكنيسان فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل تاس رجع أو كلا لمد ما هدو مركاه ويكدوا يهينه قعما سيدا هكلا أورانينو هكفوغينينه اسكو قابتا والشيخ يري بو النبي يري بيدهن لكن ما سقنا مرة دوسا سقنانا وحاوي النساء شقائق الرجال باهي سنة معناها دمرك ورقة ولا لهود مرة دي رقة ولا لهود دين النبي محيري صلوا كما رأيتموني أصلي قبل وحيوتو كان يساسد النبي قوتو كان جري صلى الله عليه وسلم سيدا درادة النبي محمد وحان عدينا وحاسقا إن قعمها كفوقين جري لنا عيضا أيضا هو كفوقين يسا مركيتو كان هذا هو السنة لكن هذه أيسان سمينين ويسان قعمها كفوقين وحاوي الصلاة دي ولوا صحيحة وي الصلاة دي صحيحة ولا بأس بها أرنك لبعض قبضوا يكون خلافة سحاوة وتخفضوا صوتها عد كذا هوس بيجيسا بحضرة الرجال الأجانب رجع أجانب كأمريكي جوجان رجع أجانب كأجيان كذا أمريكي جوجان معناها عد كهوس بيجيسا معناها إله أمروي تاس فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض واقرن أرنك اللباد ويكون خلافة سكبنا ننكوي أرنك السدحات وحاو إذا نابها هدو كي مادو شيء وحو في الصلاة صلاة دحديد صفقت وحاوي ويسعبنا يسايدا وحاوي سدا سيقعمها الليضة ويسعبنا يسا بعض أهل العلم لو حيدهن سدا سيليضة هذو إني صعب يسال لك الرباون قابك مهمة قابك ولا سوق خلاف بعض أهل العلم وحيدهن سدا هدي اللي يرادو حيوه كان سعيار أو كله سدا درادد بحال لك الربا إني سدا صعب يس بحال لك الربا مركا أيضا سبحان الله ديه ميسو سدا رجوا لي سبحان الله أما الدمر كليجود هذان أما الرج إمام هو هذا أيجوها كده بتكنا يعني صلاة دحديدة دخل الصقر سبحان الله وين يديه ميسو ويصعبين يساعده ولوك الدوين واقرن وجميع بدن الحرة قبل حرتها جر كذا أردن عورة عوروي إلا وجهها مركز لقرب وجه كذا وكفيها على عش لبدا على علود marka laga reebo iyo wajiga inta kale inay qariso way hatta macna lagu ay ku jiraan sida daraadeeda dumarkeenu ay markay tukanayaan ama iskaalsho u xirtaan ama maryo dhaadheer oo dhulka gaaray ay ugu tukadaan baynama halkan dumarka loogu yimide maxaa la yiraahdaa dad dumarka xanaafiyada oo hindida waxa weey ayagu madhabkooda ku raacsan yihiin madhabkoodu ma qabo in lugaha la qariyo sida daraadeed ay ku tukadaan iyaga oo aan qarinayn iskaalsho xirnayn waa isku wareereen ayagii dumarkeeni markay isarkeen وجميع بدن الحرة حورة إلا وجهها وكفيها والأمة قبضها دونتا صوما كالرجل ننكي لمته قبضها دونتا ننكي لمته حال قوضها صلاة مركي تكنيسو iyadoo qaawan bay tukan kartaa macnaha iyadoo
xudunteeda ilaa iyo jilbaha kaliya qarisay tukan kartaa inta kala qaawan yihiin Soomaa bay tukan kartaa waxa weeye sidaa weeye iyada qasabku maaha inay jirkeeda dhan asturto ilaa ay xor ka noqonayso ilaa ay xor ka noqonayso way kharij as-salaa salaada dhexdeeda way taas laakiin salaada banaankeeda ka war ma iyadoo qaawan oo sidaa u qaawan bay iska socon kartaa banaanka markii la marayo sida kuwa masayda oo maxaa la yiraahdaa reebaadiyaha oo meelaha iska joogo iska socdo iyagoo qaawan oo waxba aan xirnayn iska soconaya may sidaa ma laakiin waxay yiraahdaan wadaadadu tinteeda ma asturayso gabadha adoonta ah tinteeda asturi mayso maxaa yeelay waa in la kala gartaa iyada iyo gabadha xorta in la kala garto way si loo kala garto qasab ma inay asturta way imisa marayna waqti dheer aan fadhinaa u malaynaya kan ma ku daraa fasalkaas mise waa halkaas ku joojiyaa halkaas ku ekeenayna okay horta walmaraatu tadumu halkaas maxay idii qoran afar kaliya sheegay Soomaa where's the fifth one maxaa idii qoran adinka akhriye 1 3 4 5 وتخفض صوتها والمرأة تضم بعضها إلى بعض وتخفض صوتها حضرة الرجال هي درسنا ما أنت أسكوجي هاي والله سبحانه وتعالى أعلم.